maanta bishu tahay 21 Maarch 2020 oo maalin Sabtiya goobtan joogno waxa weeyaan goobta deegaankii Dacarta barnaamijkii 30 kun oo qoys ee gobolada Soomaaliland intii ka tabaaleysneed dan yartaa lagu tala galay ayaan ku soconaa Maroojix waan wali ku jirnaa aad iyo aad waxaan ugu madcelinaynaa deeqbixiyaashan ku soo deeqbixiyay raashinkan مركز كان الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية آد ما نقوم هذا علينا أفكا شعب كينا نقوم هذا علينا يا أفكا هيئة دينا هيئة ودرجرو أفوي كيد كراشين كقرنكا آد وحن نقوم هذا علينا يا المنكي شركة الكبارو يقولنا شقة ونكسنو راشين كنية دابل كذي هوشي ذا كمسؤولها aad baan iyaga ugu hamad celinayaa gudoomiyaha degmadana Axmed Sheekh Xuseen aad baan ugu mahad celinayaa Dacarta oo maanta 100 qoys ayaan meeshan ku qayminay oo si wanaagsan bay hawshan ugu dhacday noo mahadnaqaynaa masjidka Salmaan wax weeye dadka danyarta u damqaday waxa walaatinimo islaamnimada ugu damqaday ee u keenay maxay ahayd 30 qoys oo maxay ahayd Soomaaliland awaamida u keenay mid labaad waxaan kale u mahadnaqaynaa hay'adeena مسؤولينك أفوينك كارتجا وأيضنا وحويان حول فرعون وآد قروح بدن وحوي وقدرك كهيسة وأن لين هاي محيده هجان كود يوم محيده مريوج يهول ودنا ذوبة أن لين هاي جزاه الله خير إلى هاي وقتك يا أريمه هيدي بركي وحوي وأرين هذه أضفي عن سدا ويا ولكن الشيء وحوي بقول قيسبان إن شاء الله توقي بيننا ويهوش هذه صوتها وحوي أنت هاي إنك بدن إن شاء الله وكرر شيء دونا إن شاء الله يعني soo gaarsiiyaan wax weeye dadka danyarta waxa weeye aad iyo aadna waa u mahadsantihiin aad iyo aadna way ku mahadnaqaynaa waqti waxaan halkan ugu mahadnaqanaa boqor Salmaan iyo hay'adda kaydka raashinka ee soo bixiyay 100 qoys raashinkood aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa raashinka halkan lagu qaybinayo waa degmada Dacarta aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa بسم الله الرحمن الرحيم maalintii afraad ma wali ku guda jirnaa degmada Farweyne oo ma sha Allah raashinkii lagu qaybinayaa oo 5 tuulo oo kala ah Golala iyo Shil Caamir iyo Daymaxun iyo Gooryo iyo Laaleyska si cadaalad u qaybsantay 300 oo qoys dhamaantood ay tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa markaas Salmaan boqorka Sacuudiga oo deeqda ku soo deeqay Soomaaliland iyo aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa deegaamada iyo gudoomiyaasha nala shaqeeyay hadaan nahay hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka gudoomiyaha Farweyne aad baan ugu mahadcelinaynaa sida habsamida nala shaqeeyay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa hay'adda boqor Salmaan ee deeqdan noogu soo deeqday Soomaaliland noogu soo deeqday maantana qaybta kamid ah aanu halkan la nagu soo gaarsiiyay hadaan nahay degmada Farweyne
aad iyo aad baanu uga guddoonnay raashinkaasi deeqda ah si fiican oo habsami leh ayay dadkii u gaadhay waad aragtaanoo wakaas halkaa raashinkii yaalla qof walba kaadhkiisii ayuu haystaa si fiican oo nabadgelyo ah ayuu hawshaasi noogu dhammaatay hay-addana soo gaadhsiisayna aad baan ugu mahadnaqaynaa ka deeqda soo bixiyeen boqor salaamna aad baan ugu mahadnaqnaa hadda waxaanu taagannahay santarka goryo oo maanta hay-adda boqor salmaan ay kaalmo ku soo gaadhsiisay 5 tuulo oo 300 oo qoys ay u keentay raashin dhammaystiran oo ka kooban 7 shay bariiskii sonkortii daqiiqdii timirtii saliiddii biiniskii baastadii oo runtii la odhan karo waa raashin tayadiisu aad iyo aad u sarayso waxaan uga mahadnaqanaa hay-addaasi boqor salmaan iyo hay-adda aafooyinka qaranka ee Nedford goryood baan joogaan ku dhaqanahay tuulada goryood baan joogaan ku dhaqanahay ilaahay baa mahad iska leh horta bilaaadankuna inuu ku xamdiyo weeyaan dadkan raashinka keenay iyo waxna ilaahay ha ka ajirsiiyo idinkuna waad mahadsantihiin idinkuna noo soo duceeya dawladda muuse bixi madaxda u yahayna waanu u mahadnaqaynaa ciddii soo qabaqaabisayba waanu u mahadnaqaynaa hay-adda geedka raashinkana waanu u mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu